subscribe taabo halkan. sidoo kale kambaleelka ama jeliska furo. cagahaagu waxay qabtaa shaqo haddii aad lugeynayso, taagan tahay xilli dheer, jimicsanayso, waa kuwo guud ahaan ay ku dhacdo saacado badan hawl miisaankeeda lihi. waxaa jira habab xal u noqon kara hoosna u dhigi kara caga xanuunka iyo daalka cagaha. hababkani waxay tirtiri doonaan caga xanuunka muddo kooban, waana kuwo soo jeedintooda mudan oo kor u dhaafiya ilaa 7 hab oo kala duwan. waxaana kaa saacidi doonaan inay si sahlan oo dhaqso ah caga xanuunka u daweeyaan. biyaha diiran ee cagaha lagu meedho ama lagu dhaqo, tan waxay meesha ka saartaa caga xanuunka. ku dar Epsom salt weelka aad cagaha ku dhaqaysid ama aad meedhaysid. waxay baabi'isaa murqa xanuunka iyo xitaa inay rido bararka cagaha. joogitaanka ama masaajka cagaha, waa inaad ku joogto ama aad ku masaajiso cagahaaga si ay kaaga caawiso caga xanuunka iyo horumarinta dhiig wareegooda. ku dog ama ku masaaji iyaga looshin ama saliid si ay kaaga taageerto hoos u dhigidda isliiska maqaarka. si fududna aad u masaajiso cagaha. bedel kabahaaga laga yaabaa inay iyagu sabab yihiin caga xanuunkaaga. xirashada kabaha waqtigoodii dhaafay, kuwa aan lagugu talagelin xarag ahaan iyo kuwa aan ku leekayn oo xidhiidhi ah, waxay saameyn ku yeelan karaan caafimaadka lugaha. baraf isticmaal. inaad cagahaaga baraf saarto waxay hoos u ridi kartaa bararka, kaas oo sabab u yahay caga xanuunka. dulug meelaha aad xanuunka ka dareemayso 5 ilaa 15 daqiiqo waxay hoos u dhigaysaa caga xanuunka iyo bararka cagaha. xidho taageere. waxaa laga yaabaa in xidhashadoodu ay caga xanuunka ka yareyso xilliga aad hurdo habeenkii. daraasad ayaa soo jeedinaysa in taageerayaasha habeenkii cagaha lagu xidho ay saameyn waxtar ah leeyihiin, inkasta oo qarash ku baxayo. cirba xanuunku waa mid guud, waxaanu sanadkii haleelaa in ka badan 1 milyan oo qof. jimicsi samee. waxaad adigu samaysaa jimicsi kala bixi cagta si joogto ah, waxay kaa caawinaysaa caga xanuunka. jimicsiga waxaad ku samayn kartaa faraha cagta, ciribta iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee cagta. saliidda kalluunka. omega 3 saliidahani waa kuwo si wanaagsan kaaga taageeraya caafimaadka dareemayaasha iyo ka hortagga caga xanuunka. joogteynta qaadashada cuntada badda ee aad ku darto hanaanka cuntadaadu waxay ka shaqaysaa bogsashada iyo hoos u dhigidda bararka. daraasad dhawaanahan la shaaciyay ayaa hoosta ka xadhiqday in bukaanno qabatimay isticmaalka saliidan uu hoos u dhacay baaxaddii iyo xanuunkii ay dareemayeen ee isu dhadhawaa.